Assalaamu calaykum dhammaan mu'aashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba adduunyada ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub maantay waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha maalinta Isniinta ah la keeni doono saawad ogtiin waxaan ku jirnaa isbuucii u dambeeyay ee Konami isbuuca nagu soo aadan waxaa la keeni doonaa update vershankiisu yahay 4.2 horena waa idinku sheegay in updatekaasi la keeni doono intaan updateka faahfaahintiisa iyo waxyaabaha maalinta Isniinta ah la keeni doono intaan gudaha u sii galeen waxaan ka codsanahay inaad muuqaalkan like saarto channelka subscribe dhacdo gambaleelkana aad furato si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga kaleeto waayahay waxaan ku hormaraynaa updateka waxaa la keeni doonaa update vershankiisu yahay 4.2.0 updatekaas oo u dhici doono bisha December oo nagu soo aadan bishaas ay nagu soo aadan oo hadda bilow tahay ayaa la keeni doonaa updatekaas waxyaabo badan ayaa laga bedeli doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye oo la qaadi doono match baskan oo ayaa la qaadi doonaa haddii aad meeshaan aad ka faa'iiday waa ka faa'iiday haddii aadan ka faa'iidinna match baskan waa la qaadi doonaa oo wax kale ayaa lagu soo bedeli doonaa haddii aan isla eegno waxyaabaha updateka uu ku saabsan yahay horta updateka waxaa waaye updateka vershankiisa waxaa waaye 4.2.0 updatekan waxaa la sheegay in seasonkan la bedeli doono oo season kale la keeni doono seasonkaas cabirkiisa waxaa waaye gameka cabirkiisa waxaa waaye 70 MB ilaa 90 MB ayaa markaasi kusoo tagsanaysaa free spaceka uu qaadan doono gameka waxaa waaye 4.5 GB ayuu qaadan doonaa sidoo kale updateka every events ama campaign ama bagis dhammaantood waa la qaadi doonaa bishan lagu soo aadan shanteeda ayuu dhici doonaa updatekan update vershankiisu yahay 4.2.0 updatekaas ayaa nagu soo aadan wuxuuna dhici doonaa khamiista hadda soo socoto ayuu dhici doonaa updatekaasi bisha shanteeda ayuu dhici doonaa haddii aan updatekaas waxyaabaha la keeni doono aan ku faahfaahiyo waxaa la keeni doonaa wax la yiraahdo master leaguegaas oo aad ku kontrooleysid adiga gacantaada ayaa la keeni doonaa waxyaabo badanna aad markaasi ka faa'iidi doontid waxaa kaloo la keeni doonaa manajero aad u fara badan ayaa la keeni doonaa dhanka kale haddii aan isla eegno waxyaabaha maalinta Isniinta ah la keeni doono Isniinta saddexdan rag ayaa la keeni doonaa oo aybiga Italian League ayaa la yiraahdaa saddexdan rag oo halkan ugu jeedo wajiyadooda haddii aad aragtay dhanka commentiga nagu reeb magacyadooda waayahay haddii aan ku faahfaahiyo saddexda rag waxay ku imaan doonaan sidaan ninkan la yiraahdo Cedro waa dhaxda ugu fiican Konami uu soo maro Porteria Buffon waa isagana Porteria ugu fiican markaasi soo maro Konami ninkan saddexaadna oo la yiraahdo Ambrosi haddii aan magacyadooda qalda waa idin kala leeynayaa ninkaasna asana waa dhax marka waxaan isla eegi doonaa ratingkooda waxa uu gaarayo haddii aan ku hormarno ninkan la yiraahdo Ambrosi wuxuu ku bilaaban doonaa 98 ayuu ku imaan doonaa wuxuuna gaari doonaa 103 ayuu gaari doonaa ninka kaleeto la yiraahdo Cedro asigana wuxuu ku bilaaban doonaa 99 wuxuuna gaari doonaa 104 waana dhaxda ugu fiican ebid ee soo mara Konami waayahay ninkan kaleeto la yiraahdo Buffon wuxuu ku imaan doonaa 100 wuxuuna gaari doonaa 105 waa Porteria ugu fiican ee soo mara Konami waayahay saddexda rag wajiyadooda sidaas ay u muuqan doontaa haddaba haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gaartay muuqaalkan like saar channelkana subscribe gambaleelkana furo si mar walba waxyaabaha ka cusub Konami aan kugu soo gudbiyo soo dhawow